مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. xadiidkii afartanaad can anasin radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga yatbacu almeyit meydka waxaa raacaya alaaatun saddex waxyaabood saddex arrin baa meydka dabagelaysoo sagootinaysaa ahluhu waa ehelkiisa wa maaluhu waa maalkiisa wa camaluhu waa camalkiisa saddexdaa waxyaabood ayaa meydka raacaya fayarjicu ihnaani laba way ka soo noqonayaan wayabqaa waaxidun mid baa la haraaya mid baa baaqi ku noqonaya yarjicu waxaa soo noqonaya ahluhu ehelkiisii wa maaluhu maalkiisa wayabqaa waxaa harayoo baaqi ku noqonayo meydka la joogaya camaluhu camalkiisa muttafaqun calayhi. allaahu akbar allaahu akbar. camalkiisa ayaa markaa haraya buu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. laba way soo noqonayaan, laba waxyaabood way ka soo noqonayaan meydka. waa ehelka iyo maalka. waa labada maanta diintana dhaafisay, waa labada maanta dartood aan xaaraanta u galno, waa labada maanta ilaahi subxaanahu watacaala diintiisaan ugu baran la'nahay. waa ehelka iyo maalka. 24 saa albaabkaasay noo soo istaagayaan. qaaraankii keen, haddii kale waa ganaaxan tahay, inta ka dhac, saa yeel. waa ehelkii, waa ilmihiiyo saan cunto iyo badar ugu raadinayno yaan jamaacada naga tagtaa, yaan qur'aan akhrin la'nahay, oon diinta alla ku socon la'nahay. maanta xaasidnimadooda way naga soo laabteen. meel khatar ah annagoo joogna yay naga soo noqdeen. god bay nagu hubsadeen, way naga soo tageen. camalkaan dayacnay, camalkaan diidnay, camalkaan samayn la'nahay waa midka maanta nala joogaya qabriga. walaalayaal, ehel iyo maal iska jira, ehel iyo maal iska ilaaliya intaad iska ilaalin kartaan. waa cadow, waa fitno, waa dhibaatee. fattaqu llaaha ma statactum, intaad kartaan ilaahay ka baqa. muttafaqun calayh.